السلام عليكم كلنتي wanaagsan asxaabta qaaliga aan hawada ku saaxiibnay waa one expert Somali channel maanta asxaabta waxaan tusi doonaa amba ay idin dayn doonaa amba idin wadaagi doonaa ciyaaraha maanta la ciyaarayo predictionskooga iyo saadaashooda sida maanta caalamka iyo la Premier League loo saadaaliyay iyo la liigaha daynu isla fiirino Tottenham oo maanta ciyaar doonta iyo Fulham halka Tottenham last ugu dambeysay diraw ay ku dhamaatay ciyaaro badan halka Fulhamna ay adeegsanayso amba ay rabto in ay kaalin soo ciriirsato ciyaartan waa ciyaar kulan xasaasi aad u adag Fulham ma aha ciyaar dheer sa la filayo ciyaartan Tottenham in ay badiso ayaa laga yaabaa maadaama guulaheegi ay yaraadeen Premier League uu noqday mid aan wax badan aan la kala sareyn oo saddex dhibcood kala sareeyo oo lugaha la isku jiro ciyaarta halkan ka muuqata oo leeyahay full time result predictionska Tottenham Hotspur to win ayaa badinaysa waa draw ina dhacdo macquul ma aha laakiin se in 2-1 waliba ayaa la rabaa inay ku dhamaanayso ciyaartan salis leeyahay waana boostda team scores predictions waana iska dhalinayaan ciyaarahaasi Fulham xagga markii ugu dambeysay ciyaarada ugu dambeysay Premier League ay Southampton la ciyaarto ever ku soo dhamaatay halka ciyaarada ugu dambeysayna Tottenham 1-1 ay ku soo dhamaatay ciyaartan salisugayo waxay noqon doontaa ciyaar aad iyo aad u xiiso badan 3-1 in ku dhamaatay laga yaabaa we reckon that will be deciding 3-1 winning marriage for the Tottenham Hotspur ayuu leeyahay 3-1 in ku dhamaato correct score predictionska saasa la leeyahay ciyaartan hadii aynu feerino Liverpool oo iyadna caawil ciyaarayo Ingiriiska oo iyadna maalmahan ugu dambeeyay la qabanayay wax badan aan ka sareeyin 3 dhibcoodna hadda ku hogaaminaysa ciyaartan waxa laga yaabaa in ay badiso Liverpool maadaama imka guulaheega yaraadeen macquul inay Newcastle gool dhaliso Liverpoolna ay 2-1 ka adkaato ciyaartan isleeyahay sababtoo ah Newcastle ma aha ciyaar laftirkeegu 3-1 ayuu leeyahay we are therefore expected to see a decent 1-3 win from Liverpool come full time in 1-3 ciyaarta ku dhamaato ayaa macquula Ingiriiska labaad ku soo koobno La Liga Spanish kana hadii aan fiirno caawa Granada iyo Valencia ayaa ciyaaraya Celta iyo SD Hausa iyo Atletico Madrid iyo Getafe Elche iyo Real Madrid waa 4 kulan iyo xasaasiya Granada iyo Valencia inkastoo hadana Valencia ay adag tahay Granada maalmo ugu dambeeyay darowgeega ayaa badnaa ciyaartan waxa laga yaabaa in ay position ciriirsanayso markaas kumid maaha kooxda position ciriirsanaysa iyo kooxda kale Granada inay ciyaartan koro soo kacda laga yaabaa oo 2-1 amba 2 iyo waxba ay ka adkaato waana ciyaartan under 2.5 ciyaartan noqon doonta Granada ayaana 1-1 ku adkaan doonta sida predictions qaar leeyihiin 2-1 ay leeyihiin qaarna 2-1 ay leeyihiin Granada 1-1 inay ku adkaato just macquul waan kuwan kale halka inuu Celta Vigo ay house ka noqon karto iyadna waxay noqon kartaa in ay Celta iyo ay 2 ay ka adkaato oo saas ay bot leeyihiin labadaba oo predictions sidoo sheegaysan waxa noqon doonta 2-1 inay ku adkaato oo laakiin Atlanta niyo waxay noqon doontaa iyadoo sida caadi inuu garayso maadaama kulamada ugu dambeeyay ay soo adkeyd predictions wuxuu sheegay 4-1 in ku adkaan doonto oo iyadna Atlanta Real Benzema inuu noqdo gool koowaad dhaliyo ayaa la rajeynayaa baana garaynaysa ka koowaad predictions sax 2-1 oo jeeda